waxaan raacinaynaa maanso kooban oo ka hadlaysa geedda ama bahasha magacyada badan ee loo yaqaan bashada, bisada, yaanyuurta, mukulaasha, dinada iyo wixii kale lamid ah ama nyaawda. maansadaas oo la yidhaahdo basha cali libaax waxay tidhi: bashoy basha cali libaax, bashoy bisaday maqal, waxaa tahay beenaley, waxaa tahay beelaguba, waxaa tahay balahor carar, waxaa tahay magacyo badan, waxaa tahay baliya baas, waxaa tahay bahal khatara, waxaa tahay baahi badan, beydkaagoo nabadabaad cidlada ka baroorataa. baryadu waa raaxadaada, waxaan la biraynin iyo baktigu waa kuu xalaal, waxaa tahay booli cuna. naflaha boqorkuu abuuray bad iyo berri waxa ku nool, ilaah badankiisa iyo boggiisa wuxuu ku beeray, bashoy beerkeeda cuna. dugaaga kalena ka baqato, hadday isu soo baxaan indhaha iskala soo baxdooy, bulshada kii hagi lahaa iyo intii biri baanay gayin, barbaarkeeda wada bireeya, biyaha kuma maydhatee burshimaha ka dhowratooy, waxaa tahay busiyo oon, waxaa tahay busiyo oon, busaarad adaa ka daran, cidlada adigaa ka booya, adaa mar kastaba baroorta, markaad isku baahan tihiin ceebteeda bannaan dhigtooy, habeen badh adays bursada, markuu dadku hawl u baxo risiqa loo baratamaayo, barkima adigaa dhigto hurdada adigaa badsada, miskiin bigti hore baqoolay ilaahay dartii u baxay, markii wax yar loo bisleeyo adaa buuqoo ku ooya, barigooga caliyow, bestay baanahay aboowe, beriiska anigu ma cuno, rootiga waan ku baktiyaa, hilibaan baruur lahayn ayuunbaa igu bannaan. nimcada boqorku ina siiyey bad iyo berri, nimcada boqorku ina siiyey bad iyo berri iyo bannaan, naftii u baxdaa dhargayso, adaan waxba beeranoo baryiya been uun ku nool, bakhayl cidna aan bariin, bashoy basha cali libaax, bashoy basar xumada daa, bashoy beenta iska dhaaf. halkaana waxaan kusoo koobnay maansadii ahayd basha cali libaax.